السلام عليكم أصحابتا دمتين آدان السلامنا وحرنا هنا سمينو مقال كسابسن جرو ودا وصل طبعا أنت جرو نكي يقاني الشل ما أنت ميقانو صوت وحيت هاي horumarka magaalada ka soconaya iyo dhismaha magaalada ka soconaya liba wax la gaari kara ma ahan marka loo fiiriyo Puntland oo magaalada oo saad u dhismaysa actually wana magaalo madaxdii waaye marka waxaa badan arnaa inaan fiirino ku saabsan tahay si magaalada uu kortay si magaalada uu weynaatay shalay dadkii yaqaan maanta ma yaqaanaan marka shalay dadkii ka tagay maanta waxaan soo tusinaa meelo badan dhahantii muddo fiican aan ka maqnaa magaalada intii aan ka maqnaa waxyaabo badan aan magaalada ku soo kordhay waxyaabo ku soo kordhay waxaan isdhihi karaa aan shalay aan ku ogeyn waxa kamid ah horta wadanka lacagta waa ka baxday taasna waa qorshe kale oo si kale looga hadlo mudan talabaad oo ah soo guluuti badan ay imaaday oo ajnabi wadan imaado wax ceeb ah ma ahan tabaahanta anaga dad Soomaalinahay silbaax qaxooti ayaan ku nahay laakiin wadan kasta oo ay galino waxa ku galina laba siyaabo si sharci ah sharci darra wixii sharci ku imaado wadanka uu joogaya meel alla meesha uu tago dabcan wuxuu ka mid yahay dadka meesha ku nool cashuur uu bixinaya wadanka uu ka faa'iidaya isaguna waa faa'iidaya oo ku noolaanaya laakiin ninkii sharci darro ku galan dhalinyarada Soomaaliya wadan sharci darro ku galo libaax wadawlad waxay leedahay wadanka nooga tag sababtu waxay tahay iyaga wadanka maamula wixii sharci darro ku joogana way saarayaan wixii sharci ku joogana way haysanayaan oo waxay bixinayaan taxiga bixinayaan magagarow ku soo laabtay maxaa isbedel oo aan ku arkay horta koowaad oo ugu muhiimsan waxay tahay aan la ilaawi karin horta hadda almost 4 usbuucan jooga magaalada dhabaantii inta ay jooganay 1,000 oo shilin Soomaali oo lacag Soomaali ah ilaa hadda ma aanan arkin waliba luuq aanan gelin ma lahan ilaa haddana wax ma hayo qol stiil wax war raadinaya taasoo ay tahay waxa ka wada lacagta Soomaaliga wadanka waa ka baxday wadanka hadii ka baxday lacagta Soomaaliga saameyn badan ay reebaysaa iyadoo taas ay reebayso haddana waxa meesha ka baxay mashruucyadii laga keeni jiray wadanka dibadiisa iyo beesha caalamka lacagtii ay keeni jiraan wadanka iyadana meesha ay ka baxday iyadoo tii hore aan laga soo kabsan oo lacagtii wadanka ka baxday ah haddana waxa dhacay mashruuca meesha ka baxay dhabaantii warar badan ay ka reebeen markii labadaas ay meesha ka baxeen waxayna saad u saameeyeen dadkii danyarta ahaa oo nolomeedka ciirsanayay dhabaantii dawladda way dadaashay wax qabad fiican way muujisay iyadoo aysan lacag aysan ka iimaanin dibadda wixii ka soo galay Puntland kaliya ay dawladdu isku celinayso xagaas dawladdu amaan badan ay mudan tahay hadii aan waxba aan la xaqireenin in ay bixiso mushaaraadka dawladda oo ay shaqaale kastoo dawladda ka tirsan uu helo mushaarkiisii dhabaantii si aan maqlaayay sidoo hore iyadoo aan loo helin laakiin dawladdu wax qabad badan muujisay waxay dadka tustay adduunkana ay tustay inay Puntland ay isku tiirsanaan karto dhabaantii waa tilaabo wanaagsan oo hore loo qaaday waaye cashar fiican laga baran karo adduunka dhan oo arki karo hadda anagu nahay Soomaalina anaguna ismaamuli karno meeshan waxa ka soconaya mashruuc lagu dhisayo bridge ama bundo hadba sad u garanayso bundadan waxay isku xiraysaa laamiga weyn Garowe Marahay iyo hospital السلام عليكم صحابته سوري وهذا ماشي وحال كمبول قفكي قانا ويقانا dhawaantii oo meel aniga xasuus gooniyo ugu leh waa meel aan ku soo qaatay 4 sano kamid ah aniga noloshayda
meesha alxamdulilah waqti waa isbedelay hadda meesha laamiyaa loo sameeyey waaga aniga aan dhiganaynay tuga soo mari jirnay libaax iyadoo baaba laami uu yahay haddii xataa gaari ku soo qaado gaari wuxuu ku keenayaa isagoo wado bur aan fahmaysaa hadda dhalinyarta joogta iyagoo xaaxa ku socda imaadaan jawiga ka qaadanaya sometimes waxaa soo daayay biyaa soo daayay rooba soo daayay tuga biyaa soo maraya marka tuga soo marayso waa inaad xayxaydita macnaha cadaan ku soo martaa adoo baaba isku imaanaysaa laakiin waqti waa isbedelay hadda meeshan waxaa la dhahaa inji baa la dhahaa haddaad soo gasho 2 saac waa ku jiraysaa haddaad qiiqaysana waxa lagu leeyahay libax maxaa ku soo geliya adiga marka waxaa dhigi karta malaha geesaha fiirina waa aamise meeshaada fadhine ilaa wadada lagu baneenayo meeshan gari waa la traffic ma laha baabuurta iyaga isbaneysanaya libax waa ina xaniyaha wax ku baneysataa fahmaysaa soo almost 15 minutes meeshan waa ku jirnaa ilaa haddana wax baxaya ma lahan wadada jam waaye warar badanaa jira laakiin haddaa inta soo gasho libaxada lagu hago warar ku soo raadsaday yaa ku qasbantaana ku qaadato dhalinyarada islaamina wadada hadda aan marayno waxa la dhahaa Gureeye waxay kamid tahay laamiga wadooyinka ugu horeysay oo laami la saaray Garowe waaga ay joogay laamigana wuxuu noo ahaa libaax meesha kaliya ku tashano afan Soomaa markii kow laamiga weyn iyo laamigana iska ahaa dhalinyarta laamigana u soo shaqo tagi jireen macnaha markii sawir iska qaadayaan iyo waxaas hadda magaalada way weynaatay laamiga wuxuu kamid yahay laamiyaasha caadiga ah normalka ah laamiga magaalada waxa laga dhisay oo two way ah libaax la staafayo hatta dhicid kala xirantaa fahmaysa Soomaa Garowe waa tagtay wax lagu soo degdegi kara maahan hadda waa socnaa waxa aadaynaa wasaaradda meesha laga dhisay wasaaradda hadda Garowe aad taqaanay Garowe hore aad taqaanay wasaaradda waxay ku yaaleen magaalada gudaheeda hadda meesha iga horeyso kale meeshaas waxa la dhahaa dawladda hoose ahaan jirtay markii hore balse waxay la tahay meeshan waa laga bedelay inkastoo aanan hubin aan ku dhigi karo waa laga bedelay laakiinse meeshan madaxtooyada waxay ahaan jirtay dawladda hoose hadda maadaama wasaaradihii iyo xarumihii dawladda agan laga raray oo magaalada banaankeeda loo raray probably iyadana waa la raray waxa nacayga I don't know waxa la dhaho beerta maxaa la beerta jaceelka meedaha ma garanayo meesha ku xigta waxa waaye maxkamadii Garowe waaye maxkamadii weyneed waaye maxkamadii iyada wali lama rarin I don't know waxa uu rari waayeen malaha dadka si ay ugu baahan sababtu waxay tahay magaalada banaankeeda hadii loo raro dadku way ku dhibaato noqonaysaa inay soo gaaraan dadkana baawur aan haysan markii sidaas la aaligeed baa fiilaya inay meeshaas aysan uga rarin maxkamadda meesha nacayga ah waxa ku taala waa bangiga Garowe bangiga Puntland waa Garowe klimaan xarunta bangigana iyada istil meesheeda ku taala iyada oo dhisay meeshaas
meeshaas waxaa la dhahaa waa madaxtooyadii hore ee waxay ahaan jirtay Puntland garowe